السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. haddii aad rabto in sharaabka aad cabaysaa uu noqdo mid jidhkaaga siiya faa'iidooyin caafimaad oo tiro badan, aan kugula taliyo inaad isticmaasho sharaabka laga sameeyey geedka shamandar ama geedka aynu u naqaano baytaraafka, isla markaana aan kuu sheego mucjisooyinkiisa caafimaad ee uu jidhka u leeyahay cabitaanka sharaabkani. Faa'iidooyinka caafimaad ee sharaabkani uu jidhka u leeyahay oo aynu ku soo koobi doono 10 ugu muhiimsan ayaa waxay kala yihiin: 1. Waxa lagu sheegay cabitaanka ugu wanaagsan ee xakameeya ilaa xadna hoos u dhiga karka. 2. Waxa lagu tilmaamay sharaabka ugu wanaagsan ee jidhka siiya adkaysi iyo karti badan. 3. Waana sharaabka ama cabitaanka ugu wanaagsan ee fadhiisiya miisaanka jidhka dadka aanu miisaankoodu fadhiin. 4. Waxa lagu sheegay sharaabka ugu wanaagsan ee burburiya jidhkana ka sifeeya unugyada fidiya kansarka. 5. Waana shayga ugu wanaagsan ee kor u qaada caafimaad qabka neerfayaasha jidhka oo dhan. 6. Waana shayga jidhka siiya xaddiga ugu badan ee potassium, manganiis, xadiid, fosfor iyo magnesium oo muhiim u ah jidhkeena. 7. Waa shayga ugu wanaagsan ee kor u qaada shaqada iyo caafimaad qabka beerka, suntana ka sifeeya beerka. 8. Waxaanu sahlaa oo uu fududeeyaa in dhiigga maskaxda taga uu si fiican oo nadiif ah u gaadho maskaxda, korna wuxuu u qaadaa caafimaad qabka maskaxda. 9. Waana shayga ugu wanaagsan ee kor u qaada caafimaad qabka iyo awoodda lafaha. 10. Waxaanu 60% hoos u dhigaa halista ka iman karta kolestaroolka noociisa xun. Ilaahay baana cudurka iyo caafimaad kaba haya. Ilaahay waxaynu weydiisanaynaa caafimaad taama iyo dambi dhaaf. mahadsanidin.